kulanti wanaagsan idilkiinba khiyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba waa habeen sabti oo waxaad soo galayso bisha Mayna waa 19 sanadka 2018 qodobada barnaamijka idinku hayno ee aad ku maqli doontaan waxa kamid ah guur la yaab leh oo taariikhi ah ayaa maanta u dhacay Amir Harry iyo xaaskiisa Meghan oo markii ay ka sii baxayeen kaniisadii arooskooda uu ka dhacay Windsor dadweynihii u hambalyeynayay oo safaf dhaadheer ku jiray ay ku sagootiyeen waxa kale oo aanu idin haynaa warbixin ku saabsan Kenya oo bisha soo socota bilaabaya dhoofinta saliidda laga soo saaro gobolka Turkana gobolada Somaliland iyo Puntland duufaankii laga baqay oo halistiisa yaraatay inkastoo roobab xoog leh ay weli da'ayaan ciidaqada doorashadii 12 bishan waxa ku guuleystay isbahaysiga uu hogaaminayo Muqtaata Sadra iyo ciyaarta finalka ee koobka FA-ga ee England oo iminka socota waxa ay kala marayaan Chelsea oo hal leh iyo Manchester United oo dadaal badan ku jirta iyo warar kale caawa iyo caalamka cabdinuur sheekh maxamed saxaaq ayaa barnaamijka isku soo dubariday balse marka hore waxaanu ku bilaabaynaa wararka BBC-da saaxiibkay aadan maxamed cabdi saalamiin ayaa u diyaara aadan mahadsanid cabdixaafid Prince Harry iyo aktaradda caanka ee Ameerikaanka ah Meghan Markle ayaa isku guursaday munaasabad heerkeedu sarreeyay oo ka dhacday kaniisadda St George ee Windsor kaasoo la aaminsan yahay 100 milyan oo caalamka inay toos u daawanayeen aroosadda ayaa waxa ay timid iyadoo hooyadeed la socota iyadoo xiran taaj ay samaysay haweenay aad ugu sarreysa naqshadaha dharka oo lagu magacaabo Claire Wade Keller waxaana markaasi la soconayay 2 wiil oo da'yar oo caawinayay in ay qaadaan dhararka taajkaasi waxaana loo soo galbiyay goobta xafladda lamanaha ayaa isweydaarsaday erayo iyaga oo hortaagan 600 oo marti sharafa kaniisadda St George oo ay ku jireen rag caan ah iyo dumar intaba oo ay ka mid ahaayeen gabadha caanka ee lagu magacaabo Oprah Winfrey iyo George iyo Amal Clooney iyo gabadha kale ee tenniska iyadoo caanka ku ah Serena Williams iyagoo gaari faras saaran ayay socod ku mareen wadooyinka magaalada dadkuna sidan ayay u soo dhaweeyeen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in heshiis laga gaaray sida loo qaybsanayo dhaqaalaha ka soo xaroon doona shidaalka marka ay dhoofintiisu ay bilaabato toddobaadyo gudahooda shidaalkii ugu horeeyay ayaa waxaa laga helay meel ku dhow Turkana sanadkii 2012 laakiin wax soo saarkiisa ayaa Qatar kaga imaanaysay bulshada deegaankaasi kuwaasi oo doonayay inay qayb weyn ka helaan faa'iidada madaxweynaha waddankaasi Kenyatta waxa uu sheegay in 75% dhaqaalaha uu aadi doono dawladda dhexe 25%kiina waxaa la siin doonaa gobolka halka 5% la siin doono deegaanka laga soo saaro shidaalkaasi waxaa jirta cabsi ku aadan in musuqmaasuqa uu cuuriyaamiyo faa'iidada xooggan oo ay heli karaan dadka caadiga ee Kenyaanka hogaamiyaha cusub ee baarlamaanka Catalan Quim Torra ayaa waxa uu magacaabay dawlad goboleedkiisa oo ay ku jiraan wasiirro hore oo ay Madrid xabsiga dhigtay taageeradii ay siiyeen madax banaanida dalka Spain 2 wasiir oo kale oo la magacaabay ayaa ku maqan musaafiris waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada isagoo isticmaalaya dikreeto laakiin talaabadaasi waa mid ay dawladda Madrid ay diidi karto waxaana looga digay Mr Torra in ay dawladdiisu noqoto mid qaanuuni ah oo macquul ah dawladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay Sacuudi Carabiya inay ogolaatay inay sii dayso 10,000 oo maxaabiis ah oo inay sii dayso ilaa 1,000 maxbuus aan dhehe oo intooda badan ku jira jeelasha waddankaasi si sharci darrana ku joogay dalkaasi go'aanka ayaa waxa uu yimid codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Ahmed oo isagu booqasho ku jooga Riyaada dadka la sii deynayo ayaa waxaa ka mid ah 100 dumara dawladda BJP ayaa dib u dhac waxa uu kaga yimid xagga siyaasadda markii madaxa golahaasi wasiirada ee gobolka koonfureed ee Karnataka uu iscasilay daqiiqada ka hor markii codka kalsoonida goluhu ay u qaadi lahaayeen BS Yaduraba ayaa waxa uu sheegay inaanu helin taageerada ku filan ee uu ku xaqiijin karaya aqlabiyadda aqalka maxkamadda sare ayaa waxay amartay in loo qaado codka kalsoonida kadib markii mucaaradka ugu weyn ay ka dacwoodeen in PJP ay sameeyeen dawladda
oo halkaasi ay ka dhiseen iyagoona haysan taageero ku filan. doorashooyinkii dhowaan dhacay ayaa waxay ahaayeen kuwo qaas ah oo aanan xisbi keliya uuna ku guulaysan aqlabiyadda dalkaasi. dalka ciraaq ayaa waxaa doorashadii baarlamaanka ku guulaystay wadaadka shiicada ah ee isagu dalkaasi ciraaq caanka ka ah oo lagu magacaabo muqtada sadri, horeyna u soo noqday hogaamiye maleeshiya. mister sadri waxa uu la dagaalamay faragelintii maraykanku uu hogaaminaya dalka ciraaq, waxaana uu ka soo horjeestay faragelinta iiraan ee dalkaasi. ma uu awoodi doono inuu noqdo ra-iisul wasaare, laakiin waxa uu rajaynayaa inuu soo dhiso dowlad wadaaga oo la dagaalanta musuq maasuqa, waxna ka qabata xaaladaha dhaqaalaha dalkaasi ka jira oo dib u soo kabanaya dagaalo sannado badan halkaasi ka soconayay. laakiin ninkan lagu magacaabo mu'ayid xatiim ayaa waxa uu sheegay in isbahaysiga cusubi aanu ka wanaagsanaan doonin oo aan waxba dhaami doonin dowladihii hore. dad cusub iyo murashaxiin ayaa guulaysatay, laakiin weli waxa ku adag inay dhisaan dowlad cusub, waayo siyaasiyiintii hore waa dacwooyin. waxaan aaminsanahay inay doonayaan inay samaystaan xisbi ay ku bahoobaan si ay u cadaadiyaan murashaxiinta cusub. waxaanay doonayaan inay dhisaan dowlad ku salaysan kala qaybsanaan si ay u sii haystaan labadooda dhalasho, danahooda gaarka ahna ay u sii wataan. warkii oo intaasi ka eg aan dibid u ka celiyey cabdixaafid dacaawil ismaaciil. aad ayuu mahadsan yahay aadan maxamed cabdisaalamiin oo inala socodsiinayey wararka b b c da barta facebook ayaa dhegaystayaal sidoo kale toos noogala socotaan. iminkana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda inooga hadhay. halkani waa london. aan ku bilaabay arooskii maanta ee amiir harry iyo megan oo maanta isku guursaday xaflad weyn oo lagu qabtay kiniisadda st george ee windsor, oo la qiyaasay inay xafladda arooska daawadeen 100 milyuun oo qof dunida dacaladeeda ku kala nool. xafladdii arooska waxay kulmisay dhaqan isugu jira kii qadiimka ahaa ee reer boqor iyo midka casriga ah oo ay ka turjumaysa halka ay ka soo jeeda megan oo ah xidig aflaanta matasha oo maraykan ah. waxa iska dhalay aabe caddaan ah iyo hooyo madow. iyadoo xidhan dharkii arooska oo aanay cidi la socon ayay soo gashay kiniisadda lagu meheriyey. waxay xidhnayd dar joog dheer in badan laga daba siday. waxaa u tashay claire wayne keller oo ku caan ah naqashadaha wanaagsan ee dharka haweenka. iyadoo sidaasi quruxda badan u labisan waxaa soo kaxeeyey oo bartii meherka geeyey amiir kale dhaxalka boqortooyada charles oo wiilkana gabadhu aroosanayana dhalay. dadka caanka ah ee magaca ku leh aflaanta, cayaaraha iyo myuusiga sida opera, elton john, serena williams, george colony iyo qaar kale oo badan oo ka mid ah dhowrkii kun ee la marti qaaday oo isugu jiray caddaan iyo madow iyo carab iyo weliba cajam ayaa iyaguna goobta ku sugnaa. baadari madow oo maraykan ah ayaa khudbad shucuurta dadka kacisay goobtii arooska ka jeediyey. waa michael curry oo soo xiganaya xikmadihii halgamaagii xuquuqda dadka dr martin luther king. waxaa kiniisadii arooska ka dhacay hees wada jir oo igu luuqaynaya dhalinyaro madow oo cod yaab leh ku qaaday heesta stand by me. amiir harry iyo megan markii la isku nikaaxay oo ay ka sii baxayeen kiniisadda waxaa sugayey gaadhi faras si qurux badan loo xardhay. waxaa mar kale ah iswada qabsaday sacab, khaylo, myuusig ayaa lagu macasalaameeyey. waxa ay sii hormareen kumanaankii qof ee u rajaynayey aroos wacan oo hambalyo ku lahaa, iyaguna ay u gacan haadinayeen markii ay ka sii baxayeen qasriga windsor ee aroosku uu ka dhacayey. waa hagaag. qaar ka mid a haddaba asxaabta facebooka ayaa waxa ay ra'yigooda ka soo dhiibteen. waxaa ka mid ah xuseen maxamed, waxa uu joogaa baydhabo. xafladda aroos ee taariikhiga ah ee loo dhigay wiilka reer boqor harry iyo megan waa mid si wanaagsan loo soo agaasimay oo aan hadda ka hor cid loo dhigin, balse waxaa la yaab leh ayuu yidhi sida dunida aadka looga soo
booqday iid qaasim warsame waxa uu joogaa magaalada burco ee gobolka togdheer. rur ahaantii ayuu yidhi arooskaas maanta ka dhacay london ee ay isugu yimaadeen dadka badani isla markaana dunida looga dhegataagayey ilama aha mid aan aad ayuu u wanaagsanaa ayuu yidhi, laakiin dad badan ayaanu wax u kordhinaynin. kaasina waxa uu ahaa ninkaasi dhallinyarada ah ee ka soo qoray magaalada burco. halkaa aad dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah ee b b c da. waa hagaag wararka soomaalidu way noo soo socdaan, balse madaxweynaha kenya uhuru kenyatta wuxuu sheegay in heshiis laga gaadhay sida loo wadaagayo dakhliga dalka ka soo gelaya saliidda. kayd saliid ah ayaa 2012 laga helay meel u dhow harada turkana. wixii loo gaadho bisha soo socota ee juun waxaa bilaamaya in dibadda loo dhoofiyo saliid qaydhin oo aan badnayn. wariyaha b b c da wiil roos ayaa ka warramaya. waxaa inoo soo jeedinaya axmed cabdinuur. madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu sheegay in 75% dakhliga saliidda ka soo xarooda ay qaadan doonto dowladda dhexe, 20 ay aadi doonto dowlad goboleedka, 5 ay qaadan doonto beesha deegaanka shidaalka laga soo saarayo. golaha dowladda kenya waxay isku dayeen inay xadidaan lacagta la siinayo deegaanka turkana, iyagoo ku doodaya in dhaqaalaha deegaankaasi aanu awood u yeelan doonin lacag caddaana oo mar qura si degdeg ah ooda looga soo qaado, iyadoo meesha laga saaray xadidaaddii lacagta dadka deegaanka la siinayo. arrintana sida muuqata xal laga gaaray. xaddi yar oo saliida ayaa la dhoofin karaa muddo 7 gudahooda. saliidda waxaa laga helay deegaan ka mid ah meelaha dalka ugu horumarka liita. dadka reer kenya waxay isweydiinayaan sida ay deegaankaasi uga faa'iidaysan doonaan lacagta saliidda ka soo gelaysa iyadoo uu musuqmaasuq ba'an dalkaas ka jiro. axmed cabdinuur aad ayuu mahadsan yahay. wararkii cayaaraha ayaa inoo soo socda, waxaana dhegaystayaal la socotaan barnaamijkeennii caawaya caalamka oo uu cabdinuur sheekh maxamed isxaaq inoo soo diyaariyey. dabaylo xoog leh oo baryahan looga digayey xeebaha puntland iyo somalilan ayaan geysan khasaarihii laga baqayey, inkastoo ilaa hadda dhowr qof ay ku dhinteen, guryana ay ku burbureen. wariyaasha hargeysa iyo garowe ayaa 2 warbixinood noo haya wararkii u dambeeyey roobabka iyo dabaylaha xoogga leh. aan ku horeeyo wariyaha b b c da ee magaalada hargeysa axmed siciid cige. dabaylihii iyo roobabkii iswatay ee baryahanba laga digayey ee xeebahan gaar ahaan xaggan puntland iyo somalilan. xagga somalilan xalayto 12 iyo barkii markay ahayd ayay berbere ka dhaceen oo soo gaadheen sidii la sheegayba dabaylo iyo roobab iswato. roob laxadliina uu ka da-ay. gudoomiyaha gobolka saaxil axmed cismaan xasan timacadde wuxuu ii sheegay in 1 qof dhintay, 1 qofna uu dhaawacmay oo uu ku dumay guri roobabkii faraha badnaa. isla mar ahaantaasina dad fara badan oo gaadhay ilaa 250 qoys oo iyo 950 qofa ay markaasi ka daadgureeyeen guryihii oo ay geeyeen haatan dugsiyada ku yaala xaafadaha halkaasi lagu quudinayo. magaalada berberena waxaa aad iyo aad roobab badan oo ku da-ay. waxaa laga dareemayaa in daadadkii ay fadhiisteen oo biyo fadhiisil fara badan ay jiraan, laakiin khasaare kale lama soo sheegin. waxaa kaloo jira dhinaca galbeedka haddaynu u baxno wadadaasi xidhiidhisaha berbere iyo bulaxaar way go-antay. waxaana laga soo sheegayaa in gelinkii dambe ay ku dhufteen iyaga iyo saakaba dabayluhu bulaxaar dabadeetana halkaasi ay wararka ka imanaya, inkastoo isgaarsiintana ay go-an tahay, laakiin wararka meelaha kale fooyaasha lagu helaya ay sheegayaan in guryo fara badan uu dumiyey. goor dhaweyto labadii wixii ka dambeeyena roobab fara badan iyo dabaylo iswata oo lughaya ku dhuftay. waxaa la sheegayaa in xataa isgaarsiintii ay go'day. isla mar ahaantaasina sida uu sheegay suldaan ibraahim jaamac samatar guryihii ay dumeen 60% buu yidhi lughaya, laakiin khasaare kale lama soo sheegin maadaama dadka laga daadgureeyo dadka laga saaray. saylaco imaka iyada aan la hadlay iyada telefoonadii way hagaagsan yihiin, laakiin waxaa la sheegay in dad fara badan oo ku noolaa halkaasi oo ilaa 500 oo qoys ah laga daadgureeyo. meesha doqoshi la yidhahdo ilaa 7 kilomitir dhinaca galbeedka ka xigta in loo daadgureeyey, laakiin magaalada saylac ay ku harsan yihiin oo kaliya wixii ciidan ahaa. roobabkaasi faraha badan ee dabaylaha wataa way jiraan, laakiin sidii markii hore khasaaraha looga baqayay ma jiro. laakiin waxaa lasoo sheegayaa in meelaha qaarkood xagga miyiga xoolo ay wax ku yeeleeyeen, laakiin dadaha aanay jirin ilaa iyo haatan. isla mar ahaantaasi roobabku xagga oogadana ay ka daayeen oo shalay oo dhan magaalada hargeysa oo kale ay ka daayeen iyo boorama iyo ilaa iyo wajaale iyo dhinaca galbeedka hawba bateene. axmed siciid cigaad ayuu mahadsan yahay. magaalada garowana wariye axmed cawil jaamac oo la socday meelihii ugu dambeeyey ee laga soo sheegay roobab culculus iyo dabaylo ba'an ayaa warka noo soo diray. duufaantan gobolada puntland sidii la moodayay ma aysan noqon oo waxay u weecatay dhinaca yaman.
sida ay sheegayaan qolyaha saadaasha hawada. meelaha ay wax gaarsiisay waxaa kamid ahaa laas qoray oo laashash la sheegay in ay duufaantu ay ku jajabisay. waxaa kaloo jira roobab mihigaan ah oo gobolada qeybtood ka dahay sida gobolka bari. shalay 2 nin ayaa daadad soo rogmaday ayuu kula tegay tog ku yaala magaalada Boosaaso meel ka sokeysa. sidoo kale waxaa jira in gaadiidka iskala kala goosha Garowe iyo Boosaaso ee hadda ku xaniban yihiin toga lagu magacaabo Aldoofaar kaasi oo daad aad u badan uu ku soo rogmaday. magaalada Qardho xalay iyadana roobab mihigaan ayaa ka daay isku socodkii gaadiidka xanibay. xataa wadada dheer ee laamiga ah ee magaalada bartamaheeda Madha ma aysan muuqan oo biyo ayaa soo buux dhaafiyey. guryaha qaybtood biyaa dhexgalay. dhinaca kale gobolka bari gaar ahaan dhinaca xeebaha xiga waxaa laga soo sheegaya in tuulooyinka qaybtood roobab mihigaana ay ka da-ayaan. tuulooyinkaas waxaa kamid ah Timirshe iyo weliba tuulooyin kale. waxaa laga sheegay in guryo aan sidaas u badnayn ay ku burbureen. marka khasaaraha sidii la moodaya ma aha, hase yeeshee waa jiraan roobab mihigaana oo gobolada Puntland ka dahay. wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba hay-adda masiibooyinka Puntland u qaabilsan waxa ay bixinayaan digniino dadka looga digayo in ay meelaha godan ka fogaadaan. waxaa la sheegayaa in ay roobabku mar kasta ay sii badan karaan. ay maalmihii ugu dambeysay ilaa maanta ay dadka ay uga digayaan. wariye Axmed Caawil Jaamacad ayuu mahadsan yahay inagu horamayay wararkii ugu dambeeyay ee roobabka xoogga leh biyaha watay ee ka da'ay Puntland. wararkii cayaaraha ayaa inoo soo socda iyo doorashadii ka dhacday dalkaasi Ciraaq. madaxweynayaal dalal Afrika xukumi jiray oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Daarusalaam ee dalka Tansaaniya kaga qayb galay shirka madasha hogaamiyaasha Afrika kaasi oo sanadkan diiradda lagu saaray ammaanka iyo xasiloonida qaaradda Afrika. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo waxyaabaha shirka looga hadlayay uga waramay wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato. marka horena waxa uu weydiiyey waxa shirkan uu ku soo kordhin karo ammaanka qaaradda Afrika. dadka Soomaaliyeed markasta ay joogaan waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. intaa kadib sida caadiga Bashiir waxa waaye madaxda markay mas'uuliyadda hayaan oo dalka hogaamiyaal ay u yihiin badanaa aad iyo aad ayay u mashquulsan yihiin. howlo badan oo aad u tiro badan ayaa dhinac walba la xiriira. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay meel inta fadhiistaan ay dib u fikilaan inaanay fursad badan u helin. kuwa qaarkood dad la taliyaal oo fiican oo u fikira ayay leeyihiin laakiin kuwana ma laha. laakiin madaxdan hadda xilka ka degtay oo aan hadda shaqo hayin mashquulkooda aad u yar yahay. way fikirayaan, waxbay akrinayaan wixii hore ay soo mareen iyo muxuu ahaay waayo aragnimadii ay soo kasbadeen ayay dib uga fikirayaan. marka waayo aragnimadaas iyo maxaan ku ihahdaa caqabadaha iyo fursadaha jiro oo dhan wixii oo dhan oo dib loo soo sheelo laisu soo ururiyey ayay madaxda isu keentaa. markaasay la wadaagtaa dadka dhalinyarada ah ee aqoon-yahanka ah ama dawladaha ama bulshada rayidka ah si dalalkoodana ay uga gudbiyaan, hay-adahaasna ay uga faa'iidaystaan. marka ugu dambaysana maxaa tala soo jeedin iyo aragnimadaas waxa meesha laga dhacay recommendations ama tala soo jeedin la ururiyaa. ayadana waxaa loo gudbiyaa ururka midowga Afrika oo marka ayaguna inay ku darsadaan talada guud ahaan Afrika maxaa amnigeeda iyo nabadeeda iyo horumarkeeda dhaqaalaha iyo hagaajinta dawlad wanaageeda iyo ayaa maxaa ayadana laga gudbiyaa oo loo gudbiyaa ayagooda. madaxweyne adigu ka shakhsi ahaan way aragnimada ugu badan ee shirkan la tagtay waa maxay? wallahi de marka oo laga hadlaayo amni iyo nabad marka laga hadlaayo cid uga habboon ma jirtaan isleeyahay Soomaaliya oo wax ka dhiirayd ama wax ka sheegi lahayd. dalalka qaarna kuwa burbursan oo maxaan ku ihahdaa de Soomaaliya waayii hore sidai ahaa jirto kala durufoodii kuwana waa kuwa soo kabanayo. marka waayo aragnimo badan oo haddii ay tahay institutionska amniga sida loo dhisay caqabadaha ka jira iyo haddii ay tahay taxadiyaadka ama caqabadaha ama argagixisada ku hayso dalalka Afrika ama saaxil ha ahaato ama maxaan ku ihahdaa geeska Afrika ha ahaatee. waxaan isleeyahay Soomaaliya waayo aragnimo badan oo dhinaca amniga iyo nabadda ah ayay ku kordhin kartaa qaaradda Afrika. Soomaaliya waad horey madaxweyne uga soo noqotay waxtar intee leeg ay u leedahay shirkan waxyaabaha ka soo baxa? wallahi Soomaaliya waa dal dawladii ay ka burburtay dagaal sokeeye galay dagaalkii sokeeye ka soo baxay oo duruufo yani dawladaha fashilay lagu tirin jiray ka soo qabtay. hadda Soomaaliya runtii aad iyo aad ayaa waayo aragnimada iyo stateska Soomaaliya ay soo martoo dhan casharo laga barta ayay leedahay. shalay waxaa aad looga hadlay kayska Soomaaliya iyo wadadii ay soo martay iyo meesha hadda ay usii socotay meesha ay joogto
waxaana rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego yani dalkeena runtii dhibaatooyin iyo caqabado badan iyo mashaakilaaduu qabaa, dhibaato amniyuu qabaa, dhibaato siyaasadeeduu qabaa, dhibaato dhaqaaluu qabaa, waa run. laakiin dadka soomaaliyeed waxaana u sheego uma liidana muxuu ahay qaaradda Afrika ama dunida inteeda kaleba. dalal badan oo runtii naga fursado badan oo fursadaha Soomaaliya haystaan fursado ka badan haysto, laakiin haddana ka liitaa badan. marka Soomaaliya markaad caalamka kale iyo Afrikada kale markaad dhegeysato ama kuwa sida anagoo kale dawladaha nugul ay ka jiraan ha ahaadaan ama kuwa burburay ha ahaadaane, yani waxa ka jira iyo xaaladaha ay ku jiraan runtii aad iyo aad ayaad u jeclaysanaysaa dalkeena iyo dadkeena. marka waayo aragnimadaas lala wadaagay dad wax badan ay nagu soo kordhinay kaloon rabaa fursadaan inaan uga faa'iidaysto. baryahan waxaa jiray ayadana in oo colaad ay kasoo cusboonaatay deegaankaas Tukaraq la yiraahdo ee Somaliland iyo Puntland u dhexeeya. waxaan rabaa inaan labadaas maamul ee Somaliland iyo Puntland iyo walaalaha Soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan aan ugu baaqo labada madaxweyne ee labadaas maamul iyo shacabka labada maamulba arrinta meesha ka jirta in lagu baxo, in la qaboojiyo, maamuladu inay arrinta dejiyaan. hadallada adag iyo waxyaalaha media saxaafadda la isku marsiinayaahi waxba ma soo kordhinayaan, in la joojiyo lana wada hadlo. mushkiladaha jira ee la kala tabanayo laga wada hadlo si nabad aana lagu dhameeyo arrintaas. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wariyaha BBC Bashiir Maxamed Caato ayuu u waramayay. dalka Ciraaqna natiijooyinkii kama dambaysta ahaa ee doorashadii 12 bishan ayaa maanta lagu xaqiijiyay in isbahaysiga uu hogaamiyo wadaadka caanka ah ee Muqtada Sadr uu ku guuleystay. wuxuu ku caan baxay wadaniyadii sidii uu uga soo horjeestay ciidamadii Mareykanka ee Ciraaq qabsaday sanadkii 2003 markii la riday dowladii Saddam Hussein. xildhibaano cusub ayaa baarlamaanka galaya, kuwa muddo soo fadhiyay ayaa kuraastoodii waayay. Muqtada Sadr kuma dadka noqonaya ama qabanaya xilka ra'iisul wasaaraha wuxuuse door weyn ku leeyahay qaabka loo dhisay dowladda cusub. cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayaa ka waramaya. Muqtada Sadr magac weyne waxa uu ugu baxay sidii uga soo horjeestay ciidamadii Mareykanka horkacayay ee qabsaday wadanka Ciraaq markii la riday Saddam Hussein 2003. waxa uu hogaaminayay maleeshiya Shiica oo ciidamadii wadanka qabsaday laba jiho kaga furay kacdoon xoog leh. 15 sano ilaa iyo mantadan laga gaaro ayuu ololahaasi waday. wuxuu isu dhigay wadani aan taageersanayn faragelinta Mareykanka iyo Iiraan ay wadanka ku hayaan. waxa uu doonayaa wadanku inuu yeesho xukuumad hoggaankeeda ay qabtaan dad aqoon leh oo wadanka dib u dhisa, dowladana ka nadiifiya musuqmaasuqa. Jos Hilterman waxa uu ka tirsan yahay hay'adda ICG ee u ololeysa in la baajiyo dagaalada iyo coladaha dunida. BBC-da wuxuu u sheegay in Sadr shaqo xoog leh u tal sidii la isugu dubaridi lahaa koox isbahaysi oo wadanka xukumi karaysa. su-aasha ugu weyn waxay noqon doontaa isbahaysigaasi sida uu u ekaan doono, nooca heshiisyada ay gelayaan si ay u yeeshaan ajenda dowladeed oo shaqaynaya. ugu dambaystana waxay ila tahay waxaan arki doonnaa wixii aan hore u arki jirnay oo ah waddan aan la xukumi karin oo leh isbahaysi ballaaran oo run ahaantii aan wax go'aan ah oo weyn gaari karin. Sadr isagu waa uu iska saaray dadka laga yaabo inay qabtaan xilka ra'iisul wasaaraha. waxa uu eegayaa qof wadanka oo dhammi ay isu soo taagi karaan. inkastoo isbahaysiga xisbiyada kale uu ka kuraas batay, haddana aqlabiyad buuxa kama helin baarlamaanka. wuxuuna u baahan yahay dhinacyo kale oo ay xulafoobaan. kooxaha Sadr ay isbahaysiga leeyihiin iminka waxaa ku jira shuuciyiinta iyo kuwa aan aaminsanayn wadanka in diin lagu xukumo oo diidan faragelinta shisheeyaha ee wadanka Ciraaq. ha yeeshee sida ay qabaan dadka la socda siyaasadda wadankaas, waanwaanta iyo wadaxaajoodka dowlad lagu soo dhisaya muddo ayay qaadanayaan. sharcigana waxaa loo baahan yahay xukuumadda in lagu soo dhiso 90 maalmood marka lagu dhawaaqo natiijada rasmiga ah ee doorashada guud. cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayuu mahadsan yahay. doorashadii dalka Ciraaq wararkii cayaaraha u dambeeyey maxamed isre ayaa iminka stuudiyoga la fadhiya. maxamed aad ayaad u mahadsan tahay. cayaar la yaab leh ayaa maanta dhacday. Chelsea waa ku guulaysatay, hal ha ku badisay, laakiin waa la sigay. Manchester waa dadaal badan ayay muujinaysay. waa cayaar aad iyo aad xiiso weyn oo labadan koox waa markii saddexaad ay finalka ay ku kulmaan. laba mar Chelsea ayaa badisay, marna Man United ayaa badisay. maanta marka waxay ahayd Chelsea ayaa labaysatay. Chelsea Conte run ahaantii wararka suuqa ku jira waxaa leeyahay uu ka tegaya, laakiin wuxuu rabay inuu sharaf ku tago. hase yeeshee wuxuu sameeyey difaac adag ayuu galay oo Asbalakota, Cahill, Rudiger, Victor Moses iyo Alonso ayuu gadaal dhigtay. dhexdana wuxuu dhigay Bukayo iyo Conte iyo Fabregas ayuu dhexdana u dhigay. marka waxaan u malaysaa Hazard iyo inuu hore u diray kaliya iyo ciyaartooy kale oo asigana Chelsea ka yimid ee Giroud ayuu hore u diray. marka wuxuu difaac adag ayuu galay. hase yeeshee ciyaartii markay socotay ayaa kubad
lasoo tuuray oo aad u fiican oo weer celina ayaa waxaa hela hasaarna wuxuu ku tuurtay xariiqinta 18 taasoo ula galay goolhayaha hase yeeshee lagu riday xariiqinta dhexdeeda kaasoo Jones uu ku riday in calaamada gaduudka la siiyay ninka ugu dambeeyay laakiin calaamada yellow ayaa la siiyay goolkulaadkii ama rigooradii markii loo dhigana si xaragale ayuu hasaar uga dhaliyay dhinaca diheeya oo aadamaane dhanka kale oo ka dhaliyay inta badan kubadda Ma United ayaa haysta 66% meesha 34 ay ka ahayd Chelsea ay ka haysatay laakiin daysan adag ku haysta markii hore ciyaarta inkasta oo ay Manchester United isku dayday weerar badan laakiin qaybtii labaad ayay haddana ka sii dartay way sii kordheen weerarkooda laakiin Chelsea way ku soo talagaleen Conte inuu difaac galo oo weerar celin oo ku qaado inta badanna weerar celin ayay ku aad runtii difaaca Chelsea aad iyo aad ayay u ciyaareen khaasatan Rudiga oo aad iyo aad u ciyaar oo difaacooda aad iyo aad u adkaay umana suurtagelin labada dhinacna Alonso iyo runtii waxa aad iyo aad u ciyaaray Victor Moses oo labada dhinac u diiday inay kubadda ka yimaadeen marka Ma United kubadda way haysatay laakiin u suurtagali weysay inay gudaha ay galaan xariiqinta 18 waa laga ilaaliyay kubadda markay soo baxdana hasaar ayaa lugta ku dhigay oo waxa u malaysaa maanta inayba hasaar iska celi waayeen marka Chelsea inay labaysay ku sigatay soo u xarakeynay soo ula socday inta badanna 6 mar ay goolka Chelsea toogatay meesha 8 mar ay ka toogatay Ma United laakiin 3 ay ku aadisay Chelsea meesha ayaga 5 kubadood ay goolka ay ku aadiyeen dad aad u fara badanna way soo galeen oo 87,647 qof ayaa soo gashay garsoorana waxa ahay Michael Oliver waa ninkii Real Madrid iyo Juventus garsooraha ka ahay runtii labada koox rigoorayaal wax u eg ayuu ka diiday qaybtii hore laakiin mid runa ayuu u dhigay Fabregas runtiina Conte waxa u malaysaa inuu runtiina waxay u badan tahay inuu ka tagi doono laakiin sharaf ayuu ku tagayaa oo ciyaar aad iyo aad u fiican ayuu soo bandhigay oo Mourinho ayaa lagu yaqaanay difaaca laakiin difaaci Mourinho mid ka xoog badan kana tayo badan ayaa maanta la tusay suurtagalna uu naqaweysay Sanchez iyo Rashford iyo Lindegaard oo soo diray iyo Pogba inay galaan xariiqinta 18 runtii aad iyo aad ayaa looga ilaaliyay markii Chelsea ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ay soo bandhigtay inay maanta badiyaan aad bay ugu waan u hambalyeynay si fiican waliba aan ku raaciyay Daysano ninka dhexda uga ciyaaray Chelsea Fabregas isagoo oo BBC da hadlaya waxa uu yiri ma yaanihi xil ciyaareedkani ma wanaagsaneen buu yiri laakiin marka qaarkood way dhacdaa buu yiri bal eega buu yiri dadkan markii aan ciyaartii goolka aan ku badinay sida loo heesiyo loo faraxsan yahay ya ciyaar aad laakiin dhanka kale markaan ka hadalno Yurub waxa ka jiray ayadana xiiso weyn ayaa ka jiray goolhayihii weynaa ee Buffon ee 40 jirka ah ayaa maanta ciyaaraha joojinayay 17 sano ayuu Juventus ayuu ciyaaraha ku jiray 2001 ayaa kooxda Parma laga soo gatay 23 milyan iyo dhibic iyo 3 lagu soo gatay maanta ayuu ciyaaraha joojiyay Juve iyo Verona oo dhacaysay ayay 2-1 uga adkaadeen 7 mar oo isku xigta ayuu horyaal qaaday 9 marna horyaalka Serie A Talyaaniga ayuu ku guuleystay ninkaasna Buffon waxaa laga yaabaa inuu soo aado wadanka Ingiriiska ayaa laga yaabaa oo Liverpool iyo City iyo koox badan ayaa rabaan kulley dhankaas waa uga dhamaatay haddii aan wax yar u dhaqaaqo dhanka Spain si fiican Espanyol ciyaarihii dhacay Celta Vigo iyo Levante ayaa wada ciyaar Celta Vigo 4-2 ku badisay dhanka kale haddii aan fiirino Real Madrid waxay ciyaari doontaa 45 daqiiqo Ferrari ayay la ciyaari doontaa 26 Liverpool ayaa sugayso laakiin ayada horyaalka waxaa qaada Barcelona laakiin Real Madrid waxay rabtaa haddii ay badiso inay booska ka gasho Atletico Madrid oo ayadana axadda ciyaari doonto marka maanta muhiim weyn ayay u tahay Real Madrid koobkaas inay maanta ay guul ay qaadsi ay kaalinta labaad u gasho La Ligaha Spain aad iyo aad ayadu mahadsan tahay maxamed Daysane wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay iyo Chelsea oo guushii raacday Cabdinuur Maxamed Saaq ayaa barnaamijka isku soo dabariday anagoo isku dhan Cabdinuur Salamiin Axmed Daysane iyo aniga Cabdixaafid aad ayadu mahadsantiin waa inoo berito 7 sidaas iyo nabadgelyo Ramadaan wanaagsan